السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخير شرفت الله هذا بركة ميل والباقي جوجتان maanta waxaa idin wadaa barnaamij aad u muhiim ah weliba ku saabsan guryaha ilaahay guri ka mid ah waa masaajidka Bergen wuxuuna ku yaalaa dalka Norway sida wada ogtiin badanaa waxaan kasoo gudbiyaa warbixinada iyo waxa idin soo gudbiyo badanaa magaalada Bergen iyo galbeedka Norway waxa ku saabsan waxaan ka soo qaaday wareysi walaalkay Ibrahim Aadan Axmed oo ah maamulaha masaajidka Bergen waxaan ka wareystay masaajidka Bergen horta asal ahaan dad badan isweydiinaya waxa laga yaabaa in isweydiisid masaajidda waddanka ku yaalay iyo wadamada masaajidda ku yaala Yurub maxaa u dhaxay in isweydiisaa dhici karto waxyaabaha ka ogaa doontiin waxaa ka mid ah horta sidee loo maamulaa masaajidka Bergen ama masaajidda ku yaalo Norway qaabkee loo maamulaa su'aalaha kale waxay tahay xubnaha masaajidda laga diiwaan geliyo faa'iido maxay leeyihiin dowladdana maxay ku bixisaa dhaqaale ahaan maxaa lagu bixiyaa waxyaabaha kale barnaamijkan kaga boganaysin waxaa ka mid ah haddii qofka muslimka waddankan joogo oo uu geeriyoodo maxaa dhacaya sidee waa broseska qaabkee la maraa su'aalo kalo badan oo dadka isweydiiyaan waxaa ka mid ah haddii uu qofka geeriyoodo la duugo qabriga meeqa sano ku jiraa ma dhici kartaa in laga soo saaro dad banaa waxa laga yaabaa inay maqleen qafal la gubay qabrigiisa in laga soo saaraa la gubay lafahay wax noocaas ah marka ma ku dhici kartaa qofka muslimka ah masaajidka muxuu ahaa bulshada ku nool magaaladan ama dalka Norway muxuu ahaa meelo badan uu taabo doona barnaamijka insha Allah ta'ala waana muhiim inuu qofka barnaamijkan daawado si uu ogaatid su'aal muhiim ah masaajidka Bergen Mosque yaa waayay dadka leh ma loo isticmaali karaa eragaas laakiin yaa waa dadka maamula wadamada maamuleeyeen meega qoomiyadaha ka tirsan masaajidka meega qoomiyadu hayaa masaajidkan ma la dhihi karaa ama muu dhow yahay in lagu tilmaamo masaajidkii xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam jiray oo ay dad ay joogeen dadka dhan meesha ku soo hiri jireen waxyaabo badan qaba jiray dawladda hoose iyo masaajidka xiriir ma ka dhaxeeya waxa kale oo muhiim ah barnaamijna hay'adan xanaanada carruurta la dhaho iyo masaajidka wax wada shaqeyn ma ka dhaxeysa ilma muslimiin haddii la qaato masaajidka maxay ka sameeyaan arrimahaas badan isga dhergi doontiin insha Allah aan wada daawanaba su'aalo badan weydii doonaa walaalkay Ibrahim Aadan Axmed ku soo dhawaadayo ورئيسيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن إبراهيم waxaan nooga hadashaa waa Ibrahim iyo masaajidka inta magaalada degneed nooga hadlay waxbarashada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد أدبان كاغا mahad celinaya ma aragtay inaad igu timaado masaajidka oo aad adigoo danaynaya inaad masaajidka iyo axwaashiisa ga wareysatid soo dhawow aad baa u mahadsantahay Maxamed كل إبراهيم وآباء تضبع عياله يوروب كوهايستا دور 20 سنة دقناها 20 سنة ودك دقناها هذا وحنا هاي معمولها مسجد كبرجن وحنا معركتي معمولها مساجد كأها أفرت سنة ولا صور دافي وحبر الشديد هذا يوديس محن كوقاتي مقالة برجن وهذا أنجوجنو وحنا كسو معركتي كوقاتي باتشلر كا administration and organizational theory ama wada maamulka iyo maareynta ururada qaybta masterka ahna ingiriiska ayaan ka soo qaatay waxaana ku qaatay xiriirka caalamiga ma santa waxaan ugu warantaa taariikhda masaajidka Bergen nooga waran masaajidka Bergen waxaa la aasaasay 1992 ururkii ugu horeeyay aasaasay kulay Islamic Foreign lihi jiray ururka muslimiinta ayuu ahaa marka kadib ururo kale ayaa ku soo biiray macnaha dabayaaqadii isaga ay sheemeeyay uu kamid yahay muxuu ahaa Islamic Culture Center oo ku yeelay jiray benzin muxuu ahaa bus station agtiisa kadib waxaan soo guurnay Noste 2000 bilowgeedii 2003 labadii ay heedan jeclahay
kadibna 2007 ayaan kusoo guurnay hadda masjidkan aan joogno oo aan iibsanay. ما شاء الله. مساجد كان مدلم كيسة. masaajidka Bergen marka waa masaajid cajiib ah oo marka loo eego masaajidyada kale Norway ka jira. waxaa ma aragtay isku bahaystay muslimiin ka kala timid 50 wadan oo ama ilaa wuxuu mathalaa 20 qowmiyadood ayuu mathalaa 3 qowmiyadood si toos ah u aasaastay marka masaajidka oo markii ugu horeysay isku bahaysatay waa qowmiyadda Bakistaaniyiinta, qowmiyadda ma aragtay Soomaalida iyo qowmiyadda Carabta. marka saddexdaas asal u ahaa in masaajidka uu hirgala 2007 markii la iibinayay waxaana ma aragtay fangareeyay muslimiinta amaba dee kharash ku bixiyay dhisitaankiisa iyo iibsigiisa muslimiinta magaaladan joogto iyo dee nawaaxigeeda. waxaa ii raacaysaa maamulka masaajidka wuxuu ka kooban yahay 11 xubnood waxaana lagu doortaa kulan weyne 2 sanaba mar la qabta. kulankaas marka waxaa lagu soo xulaa dadkii masaajidka ma aragtay matali lahaa 2 sano soo socotay ayaa lagu mathala kadibna qofka 2 sano markuu joogo laba kale waa ku darsan karaa laakiin 4 sano markii uu qofka ma aragtay masaajidka maamulkiisa ku jiro ama guddiga masaajidka uu ku jiro waa inuu ka baxaa oo ma aragtay alaqala 2 sano uu soo maqnaadaa. marka waxaana lagu soo xulaa qaab oo ma aragtay qowmiyad ah qowmiyad walba dadkeeda ayaga iska soo dhex doorto. qowmiyadaha marka isbahaystay oo 3 ahaa masaajidka asaasay 6 xubnood ay ku leeyihiin guddiga maamulka. qowmiyadaha kale oo muslimiinta kale ka koobanna waxay ku leeyihiin 5 xubnood. صح. marka shuuro iyo wuxuu kala baxaan Soomaaliya. shuurana waa lena dabcan guddi oo la talin ah oo 9 xubnood ka kooban oo ayagana qowmiyadii hadda aan soo sheegnay ma aragtay mathalaya ayagana way jiraan oo haddii loo baahda tala bixin ma aragtay hadayna ma aragtay noqoto mushkilad la xalinaya ama iibsi dhuleed ama mashruuc weyn haddii la aasaasayo marka guddiga shuurada markaas uu shaqadiisa qabanaya ama ma aragtay haddii uu xalinayo khilaafaad oo guddiga ma aragtay maamulka dhexdiisa ka dhaca ma jiraan wax inta badan ma dhacda laakiin hadday dhacdo ayagana way soo galaan oo waxay isku dayaan inay xaliyaan khilaafaadkaas. marka laakiin waxa tooska ugu shaqeeya masaajidka iyo howlihiisa inta badan waa guddiga maamulka oo 11 xubnood ka kooban aan kuu sheegay. masaajidka dhaqaalaha intuu ka helaa masaajidka dhaqaalaha ugu badan dowladdu ka helaa waxaana uu ku salaysan yahay xubnaha masaajidka inta xubnoodu masaajidka qofka ma aragtay ka diwaan gashan ayay ku xiran tahay cadadka lacagta oo masaajidka uu helaya. alxamdulilah ilaahay nimcadiisa Scandinavianka khaasatan Norway ururada diimaha ah waxaa lacag siiya dowladda waxayna ku salaysan tahay lacagta la siinayo cadadkeeda inta xubnoodu masaajidka ma aragtay uu leeyahay. mithaal hadduu leeyahay 100 xubnood hadduu leeyahay calaa xubin ilaa 1500 ayaa sanadkii ilaa 1400 iyo xoogaa ama 1500 aan iska dhahna ayay dowladda ku bixisaa sanadkii calaa xubin. marka 100 xubnood oo 1500 lagu bixiyay waxay noqon kartaa marka 150 صح inuu helo. caqabado ma jiraa oo ku saabsan maadaama xubnaha ay ku xiran tahay ma jiraan caqabado oo niga soo gudboonaada dhankaas xubnaha ku saabsan. wallaahi way jiraan caqabado way jiraan waxaa dhacda in had iyo jeer masaajid cusub ama markas cusub la bilaaba marka xubnihii dee haddana meel kale laga qorayaa mar kastaba dhowrkii sannadoodba markis cusub ama masaajid cusub ayaa asaasma waana wax positive haddii laga eego. dhanka kalena xoogaha dadkii sharciga wuxuu sheegayaa qofku waa inuu ka soo baxaa meeshii hore xubinta ka ahaa si uu meel labaad uu xubin ugu noqdo oo xuquuqdiisa u helo. xuquuqdiisa ay dowladda ku bixinaysay lacagta masaajidka ay u ogolayd siduu u helo waa inuu meeshii hore ka soo baxaa meesha cusub intuusan gelin ka hore. laakiin dadka ayagoona meeshii hore ka soo bixin oo ka diwaan gashan ayay meel labaad iska diwaan gelinayaan. marka waxaa dhacda in labadii masaajidba ama labadii markisba aysan lacag midkood ku helin. xitaa waa ku saabsan Soomaaliya qofku markuu ka guuro magaalada joogo magaalo kale u guuro iyadana waa dabcan khayr allaha ku siiya. waxaa kaloo xasuusisay qofka haddii wadanka ka guuro asagoo dee jinsiyadda Norwejiga haysta haddii wadanka ka guuro ayadana dowladda lacag kuma bixisa inkastood xubin ka tahay masaajidka weli lacag kuma bixisa waayo qofka inuu guuray ayaa lagu tiriyaa. Norway gudaheeda hadduu degan yahay masjidkii uu ka tirsanaa hadduu weli ka tirsan yahay
oo uusan meesha cusub u guuri uusan iska diiwaan gelinin masjidka hore lacagta uu helaya ma qofkuna xasuusto markuu guuri hadii laga yaabo inuu iska aad bay marka muhiim u tahay marka qofka intuusan guurin ama markuu guuro waa inuu masaajidka hore la xiriiraa oo uu yiraahdaa fadlan ha layga saara halkaan baan soo degay masjid cusub aan xubin rabaa inaan ka noqdo oo carruurteyda wax ku bartaan oo aniga aan ku cibaadaystaa marka aan laga saara ayaan maaragtay ayaan jeclahay hadhaha marka xaqna wuxuu u leeyahay in laga saara sharciga Norwejiga ama dawladda wuxuu sheegayaa in qofka hadduu soo dalbado laga saaro waana lagu dhibin waana sameynaa maasha allah waa maasantahay howlaha masaajidka qabto noo sheeg howlaha masaajidka uu qabto way badan yihiin runtii masjidka dee cibaado keliya looma imaado sida masaajidada Afrika masjidka Yurub ku yaala dee waa andhaha xarun bulshadeed waaye waa xarun maaragtay marka ugu horeysa lagu cibaadaysta oo masjida waa meel tacliinta islaamka lagu barto khaasatan carruurta lagu bara sabtiga iyo hadda carruurta wax barnaa 12 ilaa 2 inta u dhaxaysa quraanka la baraa iyo farbarashada casharo badan oo diini ahna way ka baxaan intaas waxaa dheer dadka maaragtay dhalinyarada ahna waxaan u sameynaa maaragtay activity ama howlo badan oo maaragtay activity hadday noqoto wacyigelin hadday noqoto maaragtay dhiirigelin hadday noqoto waxbarid hadday macnaha wacyigelinta markaan leeyahay hadda haddaan usoo qaata falalka dambiyada oo hadda kusoo badanaya maaragtay dhalinyarada wacyigelin aan ka bixinaa anagoo la kaashanayna dowladda hoose iyo maaragtay booliiska Bergen hadday noqoto maaragtay mawduucyada diiniga ah oo ku saabsan xiriirka wanaagsan maaragtay qofka maaragtay sidii diintiisa u ilaashan lahaa salaada hadday noqoto wacyigelin badan ayuu masaajidka howlahaas ku bixiyaa waxaa kaloo sameeyaa intaas bis ma ahan masjidka wuxuu qabaa habeen oo maaragtay dhalinyarada ay bishii iskugu imaadaan oo maaragtay ay ku caweeyaan oo cunto loo dalba oo ama loogu sameeyo masaajidka gudihiisa oo ay dabcan xitaa ay shaashaday iyo ku fiirsadaan maaragtay waxyaalo madadaalo ah oo kale marka waxa weeyaan masjidka waxaad moodaa marka inuu howlo badan qabta waxaa kaloo qabtaa masaajidka hadday mahar tahay camal maharka ayaan maaragtay aan qabanaa waxaan qabnaa 2 xubnood oo maaragtay masaajidka dhanka dawladda maaragtay ka diiwaan gashan oo aniga aan kamid ahay oo maaragtay haddii maaragtay qof uu guursanaya dhanka dawladda maaragtay ka sharciyeysan marka wixii diiniga ahaa processka diiniga dabcan culimada ayaa noo sameynaya maharkii islaamiga oo aan naqaanay laakiin kii dawladdana oo aan eegayna inuu qofkan iyo labadan qof ay shuruudihii dawladda ay maaragtay soo dejisay oo ahaa inay 2 qof oo miir qaba yihiin inay ka weyn yihiin 18 sano inay ayaga maaragtay isku guursanayaan ogolaanshahooda iyo raalli ahaanshahooda shuruudahaasaan eegnaa inuu qofku maaragtay wardanku shuruuc maaragtay sharci ku leeyahay marka waxaas oo dhan markaan ka xaqiijina marka culimadii ayaa inta kala dhamaystirta oo maaragtay labadii qof maaragtay iyo markhaatiyaalka dabcan goobjoog maaragtay ka noqdo marka tii diinigana saasaan u fulinaa marka waxaa kaloo masaajidka uu qabtaa maaragtay kulamo ama xilqooyin loogu talagalay dadka waaweyn inay ku sheekaystaan isku xasuusiyaan dikriga ilaahay mararka qaarna maaragtay xitaa u baxaan socod yar oo banaanka loo kaxeeyo oo lasoo yara madadaaliya maamooyinka laftooda waxay leeyihiin activity ama maaragtay howlo gooni u ah ay ku wada sheekaystaan oo ay ku kulmaan oo arrimahooda kaga sheekaystaan arrimaha khaaska u ah dumarka ramadaanka maasha allah ilaa iyo 300 qof ayaan maaragtay afurinaa waxaan ku qarash garaynaa ilaa 300 kun oo maaragtay lacagta Norwejiga ah mashku corona 300 qof konton cunto ah ama qada ama afur waxa loo diraa sutra 30 waxa loo diraa Knarvik 220 inta ayaa lagu afraa masaajidkan aan joogno 30 maalmood cunta laga kariyaa dad mutadawiciin ayaana kariya muslimiin ah oo maaragtay cunto karinta aad ugu fiican maasha allah dabcan dadka inta badan marka waxaa dhacda inay masaajidka ku afuraan waayo dadka shaqay ka imaanayaan afur marka karin karaan inay toos u imaadaan masaajidka ayaa dhacda kadibna taraawixiga ayaa la galaa maasha allah marka waxa weeyaan mararka qaar xitaa anaga waan iclaaminaa oo Facebook aan kusoo qornaa
dad xitaa muslim ahaana imaado oo maaragtay iska tabari ah oo usoo doonto afur. marka waxa weeyaan dee masaajid sa horaan kuugu sheegay waxa weeyaan goob bulshadeed waaye. masjid keliya runta lama dhihi karaa goob cibaado bes maahan, waa goob bulshadeed oo maaragtay dadka ay ku kulmaan, ku wada sheekaystaan baahiyahooda, hadday tala bixin tahay, hadday khilaaf xalin tahay, hadday maaragtay diin baris tahay, hadday wada sheekaysi tahay, hadday wada kulan tahay, wax kasta ay ka helayaan maasha allah. marka waxaasna waxa u sababa aan isleeyahay kolley oo maaragtay qaninimada kala duwanaanshaha. waxaa dhacday in asbuuc walba cunto ka duwan tii hore aad cuntid. marbaad cunto bakistaani cuni xad walba, cunto soomaaliyeed cuni sabtigi, waxaa laga yaabaa inaad haddana maaragtay jimcihii aad cuntid cunto burmiis. marka maasha allah. marka waxa weeyaan waxaan dhihi karnaa macnaha kelimad kale haddaan isticmaalo masjidka ummadda ayaan dhihi karnaa runtii. waxa weeyaan cid kastana way qanacsanta. dabcan caqabad la-aan ma ahan, caqabado way jiraan oo dee laakiin faa'iidooyinka ka badan. maasha allah aada u mahadsan tahay. waxaa jirta in ay Norway soo kordhisay isbitaalada in imaamiyo iyo sida walba u jireen dee kiniisadaha dadaa loo geenayo dadka diimaha kala aaminsan. marka imaamiyo la geeyaa jiro CQC-yada isbitaalada. masaajidka ma arrintaas soo imaam aada soo ma jiro meeshaas? dabcan haa wuu jiraa imaam oo imaamadeenna ka tirsan oo maaragtay ka shaqeeya isbitaalka guud ee magaaladan Bergen ku yaala. marka dowladda ayaa shaqaaleysiisay qayb ka mid ah waqtigiisa asbuucii. marka waxyaalaha uu qabtana waxaa ka mid ah in uu maaragtay dadka muslimiinta ah oo xanuunsan oo isha daran oo maaragtay isbitaalka ku jiro oo xanuunada ay soo ritaan inuu u duceeyo, inuu niyada u dhiso, inuu ilaahay u baryo, in maaragtay hadday caawimaad u baahan yihiin maaragtay uu soo weydiiyo oo muslimiinta kale uu maaragtay masaajidka la socodsiiyo xaaladooda, kuna dhiirigeliya muslimiinta kale in nin walaalkooda ama walaashooda oo maaragtay isbitaal ku jirto in lasoo booqdo. marka howlaha inta badan diinta ku saabsan iyo maaragtay inay xitaa dee qofka dad muslimiin waxaa jira oo maaragtay tawxiidkan haysta aan diinta aqaanina jira oo maaragtay iyaga laftooda dee diinta dhinac laga baro oo la baraarujiyo oo isbitaalaadka ku jiro. marka howlahaas oo dhan uu qabtaa. marka waa dhanka maskaxda iyo maaragtay niyadiska iyo ilaahay u dhawaashaha iyo dikriga iyo isxasuusinteeda halkaas uu maaragtay howlahaas uu ka qabtaa maaragtay imaamka asaga ah ee isbitaalka guud. marka howl fiican waayo oo masaajidka qaybihiisana howlaha uu wada ka midka ah. waxaa kaloo jira imaam kale oo asagana maaragtay xabsiga Bergen si joogto ah u taga maaragtay arbaca kasta u taga. imaamkaas oo maaragtay ayaa asagana lasoo kulma dee dadka muslimiinta oo xabsiga ku xiran muddada dheer xabsiga dheer lagu xukumay, kuwaasoo maaragtay uu diinta soo bara, uu maaragtay soo dhiirigeliya. nabi yuusuf calayhi salaatu wasalaam 7 sano soo xirnaa. markii inaysan ahayn dee qofka qaldamo waa ilaahay, inuu qaldami karo maaragtay inuu ilaahay ku xirnaada, inuusan meesha isku hilmaamin, inuusan u fahmin dee inuu waqtigiisi uu meesha ku dhammaaday. marka inuu maaragtay niyada usoo dhiso dadka muslimiinta hadday soo baxaan si ay maaragtay dad qof muslim ah oo dhisan niyad ahaan oo dhisan oo bulshadu markuu kusoo noqdana waxtar leh inuu noqdo. marka howlahaas ayagana qabtaa imaamkaasna. marka imaamyada kulli howlo maaragtay oo bulshadeed ayay wadaan iyo mid diini ahba. maaragtay aad baana maaragtay masaajidka ugu qayb qaataan howlihiisa. ilaahay subxaana watacaala ajir ha ka siiyo. aada u mahadsan tahay. sidaan ognahay dalkan markii cabaar la joogo oo dadkan ay ku tarmaan waxaa dhaca in ay qofkii xanuun u imaado geeriyoodo. marka caadiin waxaa noo sheegtaa broseska ama habraaca waxaa noo sheegtaa qof muslim hadduu geeriyoodo oo isbitaal ku geeriyoodo sidee xiriirkii ma iyagaa soo sameeya dadkii maa la sameeya qaabka broseska ma sharax? iyahow su-aal aada u fiican waaye oon isleeyahay dadkana way u baahan yihiin ayaad weydiisay khayr allah ku siiyo. qofka markuu geeriyoodo hadduu masaajidka xubinka ahaa mararka qaar waxaa dhacda haddii dad kaloo ehel aysan u joogin inuu masaajidka toos loo soo waca teleefonkiisa. way dhacday sanad ka hore gabar ku geeriyootay sanadkan oo baabuur u jiiray masaajidka marka ugu horreysay lasoo wacay systemkay kasoo heleen inuu xubin ka ahayd masaajidka Bergen.
laakiin inta badan qofka markuu geeriyoodo ehelkiisii ayaa inta badan la joogo marka ehelkiiyaa marka masaajidka la soo xiriiraya haddii dee qof ehelle uu ahaa masaajidka imaamkiiya markaas waqtigaas munaasabka ah maaragtay ku jiray shaqada hadday maalin arbaca tahay ama khamiis tahay imaamyo kala dadweynaha ku jiro marka imaamkii markaas ayada shaqada ku jiray ayaa marka qaadanaya hawsha duugista ahayd ama ayaga dhexdooda ayaa ku ballamaya dee qofkii ku habboonaa dhow mitaal qof soomaali ah noqdo waxaa laga yaabaa inuu imaamka soomaaliga inta badan uu noqdo dee imaamka duugi lahaa marka qofka markuu geeriyoodo anagana lala soo xiriiraa marka haddaan duugta raaciyana waxaa jira shirkado oo maaragtay muslimiin ah oo mid khidmaad la dhaha ay kamid tahay oo heshiis la galnay oo haddii uu qof geeriyoodo oo xafiisyana kule Bergen iyo magaalooyinka ku dhadhow dhan Oda iyo Vos iyo meelo badan ku leh marka qofka markuu geeriyoodo ayagaan heshiis la galnay waxay qaataan lacag ilaa iyo 20,000 ah waxaa raaci kara marka haddii ay noqoto transport hadday noqoto maaragtay qofka micnaha laftiisa dee waxaa jira dee naxash la gelinayo naxashka laftiisa waa kala qiimo badan yahay marka familiga ay ku xiran tahay naxashka ay rabaan iyo qiimihiisa iyo tayadiisa iyo ay ku xiran tahay marka hadba waa kasii qaaliyooba marka adiga laakiin waxaan isleeyahay 20 ilaa 30 kun inta u dhaxaysa ayaa ku baxda marka qofka marka waana cilaaminaa walaal maaragtay walaal hebel ayaa dhintay la leeyahay ama walaasheen gabar muslimad ah ayaa dhimatay marka waqti hebel ayaa la duugayaa meel hebel ayaa lagu duugayaa laga soo qayb gala janaasadeeda masaajidka la soo mariyaa inta badan oo lagu dukadaa kadibna qabuuraha ayaa la geeyaa maxaa la dhahaa loo duceeyaa wixii dayn laga cafiyaa la wareystaa dadkii ehelkeedii ayaa loo sheegaa dee wixii xuquuq leh inay u raadsadaan marka qofka marka la duugo ilaahay ha u naxariista wuxuu xaq u leeyahay inuu qabrigaas ku jiro 20 sano ayuu xaq u leeyahay 20 sano markay dhammaata waxay noqonaysaa marka in dowladda maaragtay warqaday soo diraysaa ehelkiisa ay u soo diraysaa marka waa inay bixiyaan khidmad bixiyaan sanad walba si aanan meesha looga saarin mararka qaar waxaa dhacda in 10 kale looga daro ama 20 looga daro laakiin inta badan waa khidmada la bixiya 20 sano wixii ka dambeeya 20 sano dowladda maaragtay kafaala qaadaysa marka hadday noqoto qabuurihii iyo ilaalintoodii iyo dayactirkoodii iyo dowladda marka dadka muslimiinta ah eheladooda ka geeriyoodeen meeshaas ku booqdaan oo ay u soo duceeyaan sida qabuuraha loogu duceyn jiray waddanka markaan joognay marka intaasaan ka dhihi lahaa hawshaas ku saabsan duugista khayr siyaada mahadsan tahay masaajidka iyo wada shaqeynta dowladda hoose iyo mashaariicda iyo waxa kala shaqeysay masaajidka wada shaqeyn fiican uu leeyahay dowladda hoose iyo dowladda dhexeba waana ku qasbannahay waayo waddankan anagaa nimid anagaa maaragtay soo galooti ah nin tuur la soo saxda isaga yaqaano waxyaalaha aan kala shaqeynaynana ma ahan dee dad isliidaya inaan nahay oo maaragtay tuugsanaya laakiin waxaan kala wada shaqeynaa inaan nahay dad bulshadan maaragtay ka mid ah xuquuq ku leh wadaniyiin ah marka diintooda iyo dhaqankoodana doonaya inay haystaan waddankiina inay la jaan qaadaan iyo dowladdiisii iyo dadkiisii wada noolaasho iyo maaragtay nabad ay ku wada noolaanadaan iyo xasilooni doonaya inaan nahaan u sheegnaa marka waxyaalahan kala wada shaqeyna waxaa kamid ah wacyigelinta markay noqoto dee waqtigii koronaha camal wacyigelinta aad baan ugula shaqeynay aad baa inagu riyaaqeen xitaa waxaana la siiyey bilad sharaf saad halkaas kaaga muuqata koley bilad sharaf ayaana la siiyey khayr laha siiye inta badanna waxaa kaloo kala shaqeynaa howlahaas waxaa fuliyada khayr laha siiye dad mutadawiciin ah oo dee maaragtay jinsiyad walbaba leh iyo qowmiyad walba oo masaajidkan xubno ka ah oo dee maaragtay mutadawiciin ah waxaa kaloo maaragtay kala wada shaqeynaa howlaha maaragtay dhalinyarada iyo caruurta isfaham waayiga waalidkii iyo dhalaankiisa si isku fahmi lahaayeen koorsooyin aan bixina ECDB la yiraahdo 10 sano ugu dambeysay koorsooyinkaas waxaan isleeyahay inta masaajidka uu bixiyay xataa ka badan inta dowladda hoose ay bixisay ilaa iimanka ilaa 1,000 ka badan ayaa ka soo baxay waalid koorsooyinkaas waxaa kaloo kala shaqeynaa wacyigelinta ku saabsan dhalinyarada iyo siday u noqon lahaayeen dhalinyaro wanaagsan oo maaragtay diintooda iyo dhaqankoodana ilaashada waddankana la jaan qaado wax barta
marka waxyaalo badan aan kala shaqeyn waxaa kaloon kala shaqeynaa iskoolaadka dadka barta maadooyinka diiniga maarata maadooyinka diiniga ah barta ayaa iyagana intii yimaada masaajidka inay yimaadaan sanadka ilaa iyo 6 iskuul ayaan qaabilnaa oo maaragtay casharo ka qaata meeshaan imaamadeena oo diinta islaamka maaragtay barta mahadcelin wanaagsan ayay maaragtay noo soo had iyo jeer noo soo diraan marka waxyaalo badan aan dowladda hoose iyo dowladda dhexba kala shaqeynaa oo hadday ugu badan dee wacyigelintaas iyo dee bulshada iyo maaragtay sidii looga shaqeyn lahaa wadajirkeeda iyo fiyow qabkeeda صح ان waxaa jiro heshiis baarna beernaha ama hay-adda xanaanada caruurta iyo masaajidka ay galeen masaajidku familo badan wax badan ka caawiyey waalidiin ilmaha wax ay soo dhex galeen oo masaajidka caawiyaa jiro heshiiskaas bal iyo baarna beernaha ka dhexeeya hay-addan caruurta nooga heshiiskaasna wuu jiraa isagana waa heshiis oo maaragtay aan isleeyahay waa unique ama dee waa khaas Norway marka loo eego meelo badan oo maaragtay heshiis noocaas dowladda hoose iyo masaajidda ay galeen ma jiro heshiiskaasna 10 sano ka hor ayaan maaragtay la galnay dowladda hoose ee Bergen weliba qaybta maaragtay xanaanada caruurta ee Barnabank loo yaqaano waayo waxaa noo cadaatay ilmo badan oo muslimiin in la qaadanayo oo maaragtay waxyaalo basiid ah had iyo jeer lagu qaadanayo isfaham waay waalidkii ha noqoto amaba dee maaragtay labadii waalidkii iyo qofkii maaragtay keeska maaragtay canuga hayay ha noqoto inay isfahmi waayaan adiga marka waxaa noo cadaatay inuu masaajidka dowrka qaadan karayo hawshaas heshiiskaas markaan galnay waa markaan bilownay koorsadaan kuu sheegay oo ECDB ahayd International Child Development maaragtay programkii ahaa oo ilaa 1000 qof ay waalid ay ka qalin jibiyeen ilaa imanka marka heshiiskaas marka wuxuu noo fududeeyay in marka aan qayb ka noqon karna ka masaajid ahaan haday waalidka raali ka noqdaan oo ay saxiixaan waxay yiraahdaan tawsihplikt erklaring ama maaragtay macnaha sirqarinta dee maaragtay shuruucdiisa haddaan u hogaansano waalidkan ay soo dalbadaan Bergen maaragtay moskee inuu qayb ka noqon kara inaan kulumadii lagu maaragtay falanqeynayay canugii iyo xaaladiisii iyo kiiskii waalidkii u dhexay Barnabank inaan ka qayb qaadano inaan dhahno dee war waalidkaan annagaa naqaano waa waalid fiican oo masaajidka ku xiran haddii aan naqaano waalid aan naqaano u yahay ama aan ku tuhmayna baan idhaahno dee waalidkan waalidnaada naqaano waa nin maaragtay wax ka qaldameen marka annagaana koorsooyin siinayna marka ilmihiis inuu dhaqaalaysan karna aan ku tuhunsannahay marka wax badan ay fududaysa runtii marka ilmo badanaa sidaa kusoo noqday waxaa kaloo laakiin iska jira dee caqabado kaloo naga haysta dee caruurta qaar oo lasoo celin waayo sababo jira awgood in maaragtay aan u weyna dee guryo muslimiin ah oo qaabila oo maaragtay ama qaabili karaya ilmahaas oo boos u heli karaya amaba dee kasoo bixi karaya barakallahu fiik dadka soo galootiga ah dee waa caruur badan ay haystaan inta badan khaasatan Soomaalida guryo ciriiri ahna way degan yihiin marka dee toodiyayba tabar u laayihiin marka qoftiisa tabar u laa marka ilmo kale ma qaabili kara marka waxaa dhacda marka inaan u waayna annagooba ka muslimiin ahaana loo ogoliy in canug la soo celiyo in aan u weyna dee meel ku habboon ama cid ku habboon oo loo geeyo oo maaragtay daryeesha dowladda waxaa maray inta imaadeen niga codsadeen Soomaa fostarium dad muslimiina ilmaha muslimiinta la qaatay in loo dhiibaanaan masaajidu ma keeni kartiin sunnimo weydiin arinka markasta ay noo yimaadaan masaladaas mas'ala taagan waaye maalin dhawaad xataa dowladda hoose mar la soo kulunay waxaan kala hadlaynay inay xaqiijiyaan in maaragtay in ay arinta maaragtay ku saabsan waxa sharci cusub Barnaban law cusub ama sharci cusub xeer cusub oo caruurta ku saabsan xanaanadooda ayaa jiro soo baxay oo hadda maaragtay tixgelin iyo mudnaan siinaya canuga dhaqankiisa iyo hidihiisa iyo diintiisa in la ilaaliyo xitaa haddii la qaato marka waxa weeyaan in waxay ku qasbanaadeen marka camal kuma qasbanaan laakiin inta badan maaragtay ay loo baahday in la helo marka qoys muslim ah oo canug loo geeyo qoys muslim ah ama Soomaali ah oo loo geeyo canug maaragtay ku hidda iyo dhaqan iyo diin ah marka tiina marka sida hadda soo sheegay waa caqabad taagano qaxootigii soo qaxay ama dadka muslimiinta oo soo qaxay inta badan guriyana ma iibsadaan
waana dad qoysas waaweyna marka baahidaas waan dabooli weyne laakiin wada shaqaynta way jirtaa waalidiinta marka caruurta inta badan Norway la qaatay ilaa iyo 55 kun lagu qiyaasaa sanad walba ama la soo farageliyaan cafwan caruurta la soo farageliya ilaa 55 kun marka 55taas kun 50 iyo 2 kun oo kamid ah qiyaastii koorsooyin la siiyaa waalidiinta caruurtoodana waa loo celiyaa dalkoo dhan ka wadna muslim dalkoo dhan sheega Norway oo idil muslim la'aan sax muslim la'aan caruurta la qaat marka ma haya statistiga rasmiga inta caruur muslimiin oo la qaata ama Soomaali ah marka 4 kun oo kale oo muslimiin ay ku jiraan qolo walba ay ku jirto waa dawladda marka mas'uuliyadooda qaadaysa waayo dawladdu waxay go'aamisay in aabba iyo hooyo lagu aamini karo oo ilmahaas maslaxadooda iyo koriinkooda waxay yiraahdaan kelimada isticmaalaan jirta baarnas besta canugo wanaagiisa ama horumarkiisa ama canuga dantiisa ama waxa u fiican waalid aan ka soo bixi karin markay xaqiijiyaan inuu noqdo waalidka caruurtaas dhalay waxaa dhacda marka inay caruurtaas ay qaataan oo iyada mas'uuliyadda laga qaado waalidkii oo maxkamad ay ka qaado marka ilmihii marka anaga marka waxaan xaq u leenahay waliba ka muslimiin ahaan iyo heshiiskaas wixii ku qornaa in canugaas la geeyo iyadoo xeerkii cusbaa oo ku saabsan xanaanada caruurta la eegayo in canuga loo geeyo meel hidihiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa uu maaragtay ka heli karaayo laakiin waxaa taagan caqabadii ahayd qoys kafaalo qaadi karaayo inta badan lama helo marka waxay ku qasbayeen marka inay ayaga cidda ay heli karaan ay u geeyaan hadda waxaa ognahay wadamada galbeedka hadda inay usii bateen dhanka midigta inay sii adkaan siyaasadda dhanka midigtaa sii baxoogeysanaya wadamada Yurub oo dhan Mareykanka hadda waa ognahay Trump haysto so hadda masaajidka ma laga yaabaa inay dhacdo in la dhaho macaawinada ha laga jaro muslimiinta in waxa qaab noocaas la geeyo baarlamaanka oo la dhaho dadka diimaha dhan waa ka jareena wallahi markasta shuruuc cusub timaada waxaan umaleynaa 10 sano ugu dambeysay sanad walba sharci cusub oo diimaha ku saabsan ay imaanayay shuruucda hadda ugu dambeysay waxaa kamid ahayd haddii uu maaragtay ururka muslimka ama masaajidka maaragtay ku magacaaban baan dhahay 50 xubnood uu leeyahay 100 xubnood wixii ka yar in aanan mucaawano dawladeed ama lacag la siinaynin dawladda lacag siinaynin awal waxay ahayd 50 xubnood ay ahayd hadda marka 100 xubnood ugu yar waxay dawladda lacag ku bixisaa marka sanad walba shuruuc cusub ay imaanaya marka xisbiyada dabcan way kala duwan yihiin xisbiyada midigta inta badan maba qabaan in lacag la siiyo ururada maaragtay muslimiinta ah ama diimaha hase ahaatee inta waxaan aaminsanahay dawladda ay lacag siinaysa maaragtay Danosh shirka ama kaniisadda dawladda Norway ay si rasmi ugu diiwaan gashin diin ahaan inta lacag la siinayo waxaan aaminsanahay in muslimiinta aan laga jari karin marka laakiin mar haddii laga wada jarayo in lagu wada jaraa marka hadda alxamdulillah horta inta badan wax hadda kobcay waa muslimiinta iyo ururadooda iyo masaajidada marka waxaan rajaynaynaa in mustaqbalka aan isku filnaan haddii Ilaahay yiraahdo laakiin kulli hadda cabsi weyn oo dhankaas ma jiraan laakiin shuruucda markasta waa la sii adkeeyaa shuruucda la adkeynaya waxaa kamid ah mithaal inta shuruucda garan hortaga samaysan Soomaha in masaajidada la mideeyo in hadda bilaabato magaalooyin u dhow masaajidada lagu soo daro Bergen maska soo ma jiro laaman inay leeyihiin masaajidka Bergen dabcan haa xubno badan oo ku dhowr waxaan leenahay laamood laam baan ku leenahay Sutra midna waxaan ku leenahay Kanarvik marka Nur Hamson midaan ku leenahay 3 meelood aan ku leenahay marka laamahaas marka inta badan ayaga gooni isu maamulo xubnahoodana Bergen Mosque ay ka tirsan yihiin anaga marka waxaan ka bixinaa korontada iyo kiradaan ka bixinaa laakiin waa laamo oo iskooda maaragtay isu maamulo oo is agaasimo sadaqadooda wixii aruursadaanna waxa weeyaan ayaga maaragtay arrimahooda khaaska ah ku fulista waxaan gaarnay xilliga gabagabada ku dhownahay waxaa sheegtaa higsiga fog oo masaajidka uu leeyahay higsiga fog insha allahu tacaala sidaan rajaynayna hadda waxaan dalbanay in dhul aan leenahay oo masaajidka ku dhagan oo wadada saaran inaad aragteen u malaynaa in dawladda hoose inoo ogolaato inaan dhisano marka muddaan sugayna ilaa 10 sano sugayna lacaga badan way nooga baxeen heerar kala duwan uu soo maray alxamdulillah hadda meel fiican wax noo marayaan marka kol dhow in la ogolaado ayaan rajaynaa haddii Ilaahay yiraahdo hadda siyaasiyiinta baa dhiman maaragtay inay shaabada saaraan
ilaahay subxaana watacaalana wuu suurtagelinayaa marka haddaan masaajidkaas dhisno masaajid weynaan rabnaa inaan dhisno hadduu ilaah yiraahdo oo hadda goob bulshadeedaan nahay markaas aan noqono dee hadduu ilaah yiraahdo machad bulshadeed inaan noqono oo dee jaamacad bulshadeed noqonaan rabnaa hadduu ilaah yiraahdo marka biidni illaahi alkariim waana gaarayna hadduu ilaah yiraahdo marka hadda iyo xaaladan waxaan focuska saaraynaa inaan dadka dhalinyarada soo jiidano inaan maaragtay diinta barno inaan maaragtay wacyigelin badan siino inaan ku baraarujino inay maaragtay ayaga yihiin dadka risaalada sii qaadi lahaa hore usii wadi lahaa maaragtay mustaqbalka marka dadka muslimiinta hogaamin lahaa inaan hadda diyaarina ayaan isku dayayna insha allahu tacaala waana noo suurtagelaysaa marka wada shaqaynta bulshada iyo dowladda hoosena halkaasaan kasii laba jibaarina hadduu ilaah yiraahdo waxaan rajeynaya mustaqbalka inaad dad bulshada degan masjid weyn waxaan dhisaynaa minaaradiisa leh kii ugu horeeyay Bergen masjid weyn oo muslimiinta leeyihiin oo kii ugu horeeyay Bergen inaan dhisnaan rabnaa dabcan kan baa kii masaajidka ugu horeeyay waayo laakiin kan waan ugu yar yahay khudbadaha camal 2 khudbadood aan dukanaa ilaan booskii aan ugu yar inkastoo halka khudbadba ay dukato 250 ilaa 300 haddana 2 khudbadood la dukadaa marka masjid weyn insha Allah dhisi doonaa oo machad ah hadduu ilaah yiraahdo mustaqbalka hadduu ilaah yiraahdo adoo maadsan 10 sano caqabadaha u taagnaaso maxaa ka mid ah meesha waxaa jira shuruuca dadka badan ee ka sinaa laga yaabaa maxaa hortaagan 10 sano maxaa loo dhisi lahayn lacagta waa lahayaa marka waxaa hortaagan oo dadka aysan fahmi karin noo sheeg wallahi waxa ugu weyn waxa weeyaan wadankan sharciga ka jira sharcidiisa in loo hoggaansamo dowladdaana de waxa weeyaan kuma shaqaysa caadifad iyo shucuur kuma shaqaysa laakiin waxay ku shaqaysaa aqli iyo logic marka waxa weeyaan case walba waxa weeyaan meesha horta masjidkaas kale laakiin muddo ka hore ayay dowladda maaragtay ka dhigtay dhul danta guud ah inkastoo dee aan howl kale lagu qaban karin laakiin dhul cagaar camal natuur vanet dhul cagaar ah oo doog ah oo dee maaragtay dadka ay ku dangegsadaan ay ku nastaan camal ayaa maaragtay ay ka dhigtay marka annagan waxaan codsanay in dhulkiina loo ogolaado inaan dhisano annagaa asal ahaan u lahaynay in maadaama baahidina ay jirta dowladdina aan wada shaqayn la leenahay bulshadana ay sii badanaysa way sii tarmayaan dadka muslimiinta ah xubnaha masaajidka ahaa marka in aan maaragtay aan dhulkina loo ogolaado inaan dhisano marka caqabadaha kaliya oo intaan aan u sugayn wax kaliya nagu eg ma ahan maxadka naga soo horjeeda 10 sano u sugay 8 sano u sugay kan kale oo gurigan ardayda intaas la sugay 7 sano marka waxa weeyaan process la maray ayaa jira ama habraac marka waxa la rabaa shuruud kasta inaad ka soo baxday haday tahay guriga dherirkiisa haday tahay maaragtay tixgelintii jadka jiiraanka haday tahay security shuruudihii faraha ka badan marka waxa weeyaan wixii shuruudihii oo dhan marka waa in la hubsadaa in maaragtay aan maaragtay u hoggaansanay oo aan ka soo baxnay markaa kadib baa loo ogolaadaa waxaana kaliya u khaasana maaha khayr Allah ku siiyo fariin maxaa u diraysaa dadka muslimiinta ah reer Bergen ha noqoto ama si guud dadka qurbaha jooga in masaajidada maxaa u diraysaa wallahi ana fariinta kaliya aan diraayo waxa weeyaan dadka ku riyoonaya in masaajid uu yahay kii Afrika oo Yurub joogo dee way qaldan yihiin masaajidyada waxay u baahan yihiin meeshaan horta markasta dowladdu way sii adkaysaa systemka waxaa loo baahan yahay masaajid daah furan hoggaankiisana dadka maaragtay xubnaha ka ah soo doortaan wax qabadkiisana wax qabsi iyo hiigsi leh iyo maaragtay qorsho maaragtay hawleed 2 sano 3 sano marka walba la xisaabinayo dib u eegis lagu sameeynayo maamul maaragtay dadka u adeegaya oo aan danaysanaynin dad maaragtay gacan furan oo inay isa soo dad waxaa jira isqoraya masaajidada iska qoraya aanan waqti haynin marka de waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iskale masjidka ummaddaana dee ummad maaragtay ilaahay uu leeyahay waaye marka waxaa laydinka raba waxaa weeyaan inaad maaragtay hawshii maaragtay risaaladii inaad sidii aad ammaanadii u qaadeen aad hore u wadaan insha allahu tacaala waqul icmaluu waxaan leeyahay fasayara allahu camalakum warasuuluhu walmu'minuun جزاك الله خيرا هذا ما سنت وبارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته